ninka reer SSC ama gruubka reer SSC ee ka shaqaynaya inay xumaato wada dhalashada tulweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaqo yeeshaan maamulka SSC iyo dawladda Khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay muxuu ka dhaxlayaa haddaba aan idin cadeeyay qorshahani maaha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay gruubkan waxaad ku garan kartaan weligood wanaag reer SSC kama shaqayn weligood dun umayan gelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC waxa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay majaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen aadiyad waad soo dhageysateen khudbadii garaad jaamac garaad cali waxaan rabaa inaan falanqeyn kooban aan ku samayno sidoo kalena aan banaanka soo dhigno siyaasiyiinta uu sheegay garaad jaamac garaad cali oo hadda la ila wadaagay liiskooda iyo magacyadooda waxaan rabaa inaan warbixintan markaasi ku dul istaago xogahaasi oo dhan shacabka reer SSC Khaatumo iyo shacabka reer Puntland aan la wadaago arintaas sidoo kalena waxaan rabaa fariintii ugu dambeysay inaan halkaan uga diro isimada SSC Khaatumo anoona kala reebaynin dhamaantii waxaan ka codsanaynaa fariintan iga sii share gareysaan muuqaalkan la gareysaan aad baa mahadsantiin waa marka koowaad horta garaad jaamac garaad cali waxa uu hadalkiisa caawi ku qutumiyay in ay soo baxeen dad gruub ah oo meelo kale ka shaqeynayo kuwaasi oo looga awood batay anaa ku darsanayo qodobkan meeshii ay iyagu matalaada looga dirsaday horta dadkaasi magacyadooda in la wadaagi doonaa garaadkuna waxa uu sheegay in laga xumaaday si fiican u dhageysta deegaanada beelweynta ma jeerteen markii uu booqday baa laga xumaaday bas intii hore oo dhan markuu hartiga dashiishaha iyo warsangeliga booqanayay lagama xumaanin markaas ayaa la soo tuuray gantaalka waxayna isla doonteen hadalkii garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo hadalkii garaad cali uu ka sheegay garaacad aad horta nooca siyaasiyiintaasi waa kuwan waxa ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare nin lagu magacaabo Timacadde waxa ku xigo nin lagu magacaabo Bidhaan oo wasiir ah waxa ku xigo nin lagu magacaabo Qawdhan oo xildhibaan ah saddexdaas nin way horta siyaasiyiinta u garaadku duray oo uu sheegay shacabkaygana ma raba inaan waxba ka qariyo inaan halkan kula wadaaga ayaan rabaa haddaba taas waxa cadeyn idinkugu filan xilligan markii uu garaadku hadlay 14 daqiiqo kadib waxa bogiisa gaarka ah ee Facebook Cabdullaahi Timacadde lagu baahiyay qoraalkan isaga ayaana soo qoray garaadku ninna farta kuma fiiqin oo uu dul maray balse isaga waa uu isgaranayaa nin walba iyo meeshii bugtana isagay balbashaa ama isaga oge waa kaasa qoraaladaasi ku dacayadeynaya dhismaha SSC Khaatumo isagoo ka soo qaadayo Khaatumo wax aan jirin ilaa la helo maakhir waxa loo yaqaano haddaba Timacadde waa dadka ugu waaweyn ee uu garaadku sheegay raggaas iyo ragga la midka ah ee Cali Xoosh ina diyaano ma taqaanaayay ii sheeg rag kale oo xildhibaano ah oo sanyaro ku jiro horta raggaasi waxay ka xun yihiin hadalkii garaad jaamac garaad cali ee ahaa war ninka aan maantay tolkiis u urursanayn Soomaaliya kuma noolaan karo wallaahi oo billaahi oo tallaahi intaasay ka xun yihiin tolkaas weyn ee isku duba dhacay ee hartiga ah ee midoobayna in la kala dhantaalaa la rabaa anigu xaq inaan ku adimaan Saciid Cabdullaahi Dani hadaan mucaarad ku ahay macnaheedu ma ahan inaan xaq ka gabanayo waan ku adimayaa xaq raggaasina waxay u adeegayaan maamulkan fadhiidka ah ee xamar ku habsaday ee ma taqaanay fashilmay iyo qoladii lugtooda baqtiga ah jiitay ee maamulka Hargeysa garaadku intaasuu sheegay intaasuu qodobadiisa ku soo bandhigay intaasuu ku cadeeyay hadalkiisa waxa kaliya maqnaana waa in la sheego siyaasiyiintaasina kuwa reer Puntland way leeyihiin kuwa reer SSC Khaatumo way leeyihiin hadalku inuu caadi yahay baa fiican wax kalena kama aysan xumaane maxaa deegaanada ma jeerteen u tagtay maxaa deegaanada ma jeerteen ma taqaanay u booqanaysa maxaa tolka ugu mahad celinaysa intaas laga xuyay garaad intaas markay ka xumaadeen anagu intaas waan kugu jeclaanay
SSC qaatumana dadka har iyo habeen difaacaya waa annaga oo reer Puntland oo ama jeerteena Darwish TV dadka meel kasta ku qortayna waa annaga calanka qaatum dadka meel kasta u saaran yahay waa annaga maxaan Puntland TV ugu qoran weyn oo aan Darwish TV ugu qoran ma noo sheegi kartaa waa jacaylka aan u qabno dadkaas tolka ah ee walaalaheen ah nagamana guuraysa jacaylkooda iyo walaaltinimadooda garaad jaamac garaad calina waxa lagu diidan yahay ee siyaasiyiintaasi ay dadkaasi ehelka u dhibaataynayaan waa qadiyadiisa adag waxaan ka ballan qaadaynaa garaad inaysan mar dambe dhici doonin dadkii cadawga u shaqayn jiray ee ama tiimkii Aranjan iyo ilmadii aan ha noqdaan ama tiinkaas timacadii bidaan ha noqdaan gacan bira annaga ku qaban doono okay intaas waa garaadka hadalkiisi aan ku dhuuxayno waxa soo haray fariintan u diray isimada SSC qaatumo iyo garaadada anoona kala saareen isimow iyo garaadow walaalayaalow iyo ehlow iyo tolow kaamirada waa lagu waashaa waadiga aqli badan tihiin waadiga waaya aragsan tihiin waan ogahay waxa jiro walaalayaalow iyo garaadow iyo isimow kaamirada waa lagu waashaa hadda Puntland ismay leedahay iyagoo isugu jawaabaya ma aragteen miidiyaha iyaga oo markaasi ma taqaanaayay meelo kale isaga jawaabay ma aragteen walaalayaalow arrimihiina hoos u dhamaysta oo walaalayaalow cadawga yuusan naga faa'iideysan oo hadalladiinaas waxba lagala dhex baxayaaye ka daay idinku isku imaada shirc war dhul bahantow miidiya wixii hadday shimbir dhuustaad miidiya kula soo ordaysan maxay tahay walaalayaalow ka daay sidaan aqli ma ah garaad jaamac baa hadlay Ismaaciil kii kalena waa kana garaad cali ka daay firdhiya maamul loo doortay faraha uga qaad maalinta uu qar kala dhaco hadda ismadu way shiraan oo talweynuhu waa shiray si hoos idinkoona miidiya imaan qabta gacanta ku dhig inta ka horeysana faraha uga qaado Saciid Abdullaahi Dani hadduu maanta dhan adduun qaribaya de isma ma haystaan laakiin maalintii la arkay inay xaaladdu ku baraasatay gacanta lagu dhigayo tolow iyo ehlow iyo qaraabo kaamiradan inaga dhaaf annaga kaamirooyinka joognay dhalinyaradeennii baa joognay naga daaya kaamirada intaasna waa canaal tulnimo anoo waliba ka cudur daaranayo inaan halkan garaadada iyo isimadeedii ka dhaho oo aad uga cudur daaranayo haddana waan ka fursan waayay billahi tawfiiq intaas ku soo kafnaysaa qorshahani maaha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay gruubkan waxaad ku garan kartaan weligood wanaag reer SSC kama shaqayn weligood dun umayan gelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC waxa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay majaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen gruubkan siyaasadeed waxa ay hirgelinayaan ama ujeedkoodu uu yahay marka hore in la kala kaxeeyo tulweynaha harti marka labaadna siday ka shaqayn jireen inay kala kaxeeyaan reer SSC marka labada waji lagu guulaysto waxa sacab lagu soo dhaweynayaa Somaliland oo wadadaasi ay tahay takaliya u furan maadaama ay awood gabeen maanta ayan ku abaari karin awood in la kala qaybiyo dadka reer SSC tolkood lagu diro cidla la soo taago iyaga sidii loo kala kaxayn jiray loo kala kaxeeyo kala dambaatihiin la yiraahdo maalinta taasi ay dhaxdana sidoodii iyagoo dulundulcoynaya Somaliland ay soo gasho laascaanood wiilashani maaha kuwa cusub waa kuwa la yaqaano waa kuwa hore sidan u sameeyay oo u hirgashay ku nabad galeen gruubka aan tilmaamayo ayaa iyagoo fulinaya qorshahooda cadow waxay isa saareen oo isla doonteen hadal anigu aan ka idhi garacad iyo hadal garaad jaamac garaad Ismaaciil uu ka yiri magaalada laascaanood oo aan isqusayn hadalkii garaad jaamac uu ka yiri halkan cadowga ku soo duulaya goluhuna uu weydiiyay cidda uu uga jeedo isna uu yiri hay'ado iyo qolyo kale gadaalna waa ka sheegi doonaa
hadduu rabana qoladan aanba sheegayo uu u jeedo iyo hadal aan ka iri garacad dekedaa markaanu booqannay ina muuqatay baahida maanta reer Khaatumo ay qabaan inay ugu weyn tahay deked shaqaynaysa iyo deegaan ku soo biira si looga jaro xarigan lagu xidhay ee reer Khaatumo ay kula yihiin xaqii ay ummadda Soomaaliyeed ku lahaayeen xarigan oo ah laba gobol oo buuxa ma tihidin si loo helo taa markii aan ka hadlayay laftigeeda kama boodsanayn kuma xadgudbayn in gobolka Mudug iyo degmada Garacad ay ka tirsan yihiin dawlad dadna uu dego aniguna aanan ku tala bixi karin iskana soo goosan karin Khaatumana aanan ku soo dari karin xadgudbayga ma ahayn waana ku ixtiraamaya dawladda Puntland ee deegaankaas uu ka tirsan yahay iyo dadka ay degan laakiinse waxa lagama maarmaan ah oo cid walba u cad Khaatumo waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka Banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya ka imaan karo waa dawladda Puntland waxa muuqata lagana leexleexanaya in Khaatumo iyo Puntland ay wada hadlaan in reer Khaatumo ay ku qanciyaan reer Puntland in ay deegaamo ka mid ah Puntland ku soo biiraan Khaatumo si loo helo dawlad buuxda si loo helo laba dawladood oo walaalo ah oo isgarab degan oo Ilaahay haduu ku roon yahay iskaashada ninka keeni kara barnaamijka afdheer oo ka cad oo ka wanaagsan oo lagu gaari karo dawladnimo buuxda oo ay Khaatumo gaadho ha soo bandhigo maanta SSC Khaatumo iyo dadkeedu waxay ku sugan yihiin barisamaad xilliga barisamaadka ana nin walbaaba laba nin buu la eg yahay hase yeeshee maalmo dhaweyd oo aan fogeyn barisamaad laguma sugnayn maalmo adag baa ina soo maray maalinta ninka la kala gartana wanaagiisa iyo xumaantiisana waa maalinta ay adag tahay maalmihii dhawaa ee adkaa tagtadii ina soo martay waxaa ku tiran oo aan cidina ka tiri karayn ninkii dhagtiisa ilaashaday iyo ninkii dhabankiisa iibsaday كان هانا ويوعد يا خير خاتمه وبالله التوفيق